mooshinka xilka qaadista madaxweynaha xildhibaanadu u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka waa jira wuxuuna ku dambeeyaa gacanta guddoomiyaha golaha shacabka oo qabtay waana mooshin sharci ah oo sugaya dooda baarlamaanka oo ka furanta golaha dhexdiisa meeshaas ayuuna ku noqon doonaa mid meel mara oo madaxweynaha xilka looga qaado ama mid muxuu ahaa madaxweynaha uu isku difaaco ku guulaysto oo codka uu ku helo ayuu ku noqonayaa waxaan kale oo meelaha la wadwado waa khuraafaad aan sharci raad ku lahayn nidaamka sida uu yahay dastuurka tilmaamihiisa ay yihiin xeer hoosaadka golaha shacabka uu tilmaamayo mooshin markii guddoomiyaha baarlamaanka loo dhiibo oo uu eego qabto xaqiijiyo saxnimadiisa tiimbareeyo waa la fayl gareeyaa arkiibyada la geliyaa intaas mar haddii mooshinka la fayl gareeyo wuxuu sugayaa dooda golaha shacabka ayuu sugayaa marka wixii ka horreeya muxuu ahaa in meelaha kale la rafto oo wax kale la raadiyo iyo xildhibaanadii mooshinka keenay la daba ordo sharci darro weeye waxna ma soo kordhinayso marka mooshinka waa jiraa wuxuuna taagan yahay halkaas wuxuuna sugayaa go'aanka golaha shacabka markii baarlamaanka uu jiro oo guddoomiyuhu ajandaha ku soo daro oo doodiisa ay furunto ayaa muxuu ahaa lagu kala baxaya runtii waa nasiib darro in muxuu ahaa qarnigan la joogo madaxweynaheenii iyo maamulkiisii ay ku fekeraan in muxuu ahaa ciidan iyo qori caaraddii wax lagu maamuli karo hay-adaha dowladda federaalka waa kala madax bannaan yihiin hay-adda fulinta hay-adda sharci dejinta iyo muxuu ahaa hay-adda garsoorka hay-adaha waa kala madax bannaan yihiin awoodahana inay isdheeli tiraan isxisaabiyaan waaye sharcigana waa sidaas nidaamkana waa nidaam dimuqraadi ah haddii muxuu ahaa sharcigii lagugu doortay lagugu eedeeyo waxaa habboon si dimuqraadi ah oo furfurnaana oo muxuu ahaa nidaamkii lagu doortay ah inaad isku difaacdo oo runta sheegto oo ilaahay ka cabsato oo xilkaaga u gudato sida dastuurka uu faraayo sida ummadda ay kuugu aamintay sida baarlamaanka uu kuugu doortay inaad muxuu ahaa ugu hoggaansantid ayaa laga rabaa ma aha inaad muxuu ahaa see laygu dhihi karaa aawe askarigii iga qabo see laygu dhihi karaa albaabka ka xir see laygu dhihi karaa waxaasi ma shaqaynayaan sharci baa shaqaynaya jamhuuriyadda nidaam bay ku dhisan tahay sharci bay ku dhisan tahay qof dhaama ma jiro haddii sharci laga tago taasna waa fawdo lama joogo waqtigeeda waa la dhaafay nidaamkiibaa dib loo soo ururiyey oo dalkii dib u dhis buu ku jiraa sharcigiisii iyo nidaamkiisii iyo kala dambayntiisii iyo wixiisii inay soo noqdaan baa la rabaa ixtiraamka iyo sarraynta sharciga ayaa muxuu lagu gaarayaa arrintaasna madaxweyne waxaan leenahay arrimaha lagu kacay arrimo fiican ma aha waa guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu madax u yahay hay-addii hooyada hay-adaha kale dowladda ahayd hay-addii dhashay muxuu ahaa madaxweynaha hay-addii dhashay xukuumaddiisa hay-addii dhashay hay-adaha kale ee dowladda ayuu guddoomiyaha baarlamaanka madax u yahay baarlamaankii iyo hay-addii baarlamaanka iyo madaxeedii oo guddoomiyihii baarlamaanka ah in lagu xadgudbo waa jamhuuriyadda shuruucdeedii ku tumashadeedii midda ugu weyn bay ka mid tahay arrin loo dulqaadan karana ma aha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu degan yahay oo hooy u ah madaxtooyada dhexdeeda guryaheeda mid ka mid ah guriga martida ayuu degan yahay maadaama xaruntii baarlamaanka ee deegaanka guddoomiyahana ku samaysnayd ee villa hargeysa dib u dhis
iyo dayactir uu ka socday mar haddii guddoomiyaha meeshaas uu degan yahay meesha isaga maamulkeeda meesha uu degan yahay isaga u madax bannaan waxaan aragnay in askartii ilaalada madaxtooyada ahayd halkii laga soo galayay guddoomiyaha baarlamaanka in amar la siiyo la yidhi qofkii guddoomiyaha u socda aad aragtaan wuxuu doona ha ahaadee celiya ayaa lagu yidhi annagaa u tagnay oo guddoomiyaha rabnay inaan soo booqanno xildhibaanada haddaan nahay waa xaqiijinay arrintaas inay jirto arrin fiican ma aha guddoomiyihii baarlamaankase asaga ka hadli doono annaga waa xaqiijinay inay taas jirto xadgudub inay tahayna waan ognahay laakiin haddii guddoomiyaha laftigiisu wax ka og yahay oo raalli ka yahay iyo haddii muxuu ahaa xadgudub ay tahay oo loo geystay asaga ayaa bayaamin doono ilaahay hadduu yidhaahdo laakiin saansaanta ma ficna waxayna ceeb ku tahay qarannimada iyo madaxweynaha oo muxuu ahaa marka horeba lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay shuruucda dalka u degsan iyo dastuurka ku xadgudbay oo waajibaadkiisa ka soo bixi waayey oo qarannimadii Soomaaliya halis inuu geliyey oo muxuu ahaa dadkii iyo shisheeyihii laga ilaalinayo uu gacan gelinayo marka horeba lagu eedeeyey ayaa haddana muxuu ahaa ku shaabadaysmaaya ceebtaas isagay ku dhacaysaa hadday jirto laakiin waxaan ka sugaynaa muxuu ahaa saacadaha soo socdo in warcad uu ka soo baxo guddoomiyaha baarlamaanka laftigiisa taas golaha shacabka uma dulqaadan karo hadday jirto sanadkan gudihiisa waa markii labaad oo mooshin xildhibaanadu ay gudbiyaan waxaan xasuusanaa in guddoomiye jawaari mooshin lagu riday kulamadii baarlamaankana saameyn uu ku yeeshay haddana madaxweynaha ayaa mooshinka yaallaa marka ma laga yaabaa in kulamada baarlamaanka sidii tii hore dhacdoo kale oo hadda mar kale saameyn ku yeesho horta soo jeedinada waa waxay ka mid tahay ajandooyinka sida degdeg ah ku yimaada oo golaha shacabka xildhibaanada ay wax ku saxaan wixii khaldan lagu toosiyo muxuu ahaa nidaamka lagu hagaajiyo ayay ka mid tahay waa qof soo jeedin baa la keenaa procedure-ka loo soo raacaa way tilmaaman yihiin xeer hoosaadka iyo dastuurka ku tilmaaman yihiin golahayna imaanayaan cidda soo jeedinta keentay go'aanka kama dambaysta iskama laha laakiin waxay leeyihiin soo jeedintaas inay muxuu ahaa procedure-ka intay soo marto hanaankii soo marto golaha la hor keeno golaha markaas isagoo kooramkiisa guntankiisa dhan yahay ay ka doodaan loo codeeyo soo jeedinada markaa cudur ma laha waa loo yeeli karaa waxaa u yeelaya cidda laga keenay oo wax diidaysa oo wax dafiraysa dafiraadana ma ficna sideedaba qofka hadduu wax haleeyo wuxuu ku warwareegaa dafiraad iyo inkiraad iyo burburin iyo nidaam buu ku wareegaa oo waxaan ahayn marka soo jeedin horta dhibaato ma laha golaha shacabka markii hore tookadii hore wixii dhacay waan arkaynay wax fiican ma ahayn guddoomiye jawaari wuxuu meesha ka tegey isaga oo dhahaayo waxaan fiiriyey qarannimada Soomaaliya danteeda kelmadda ugu micnaha badnayd ugu qiimaha badnayd ee guddoomiye jawaari maalintii uu istiqaalada dhiibayay golaha hortiis ka jeediyey mid la ilaawi kara maaha tii waa in la xasuustaa wuxuu yidhi labadii hooyadii iyo islaantii kale oo cunuga hooyadii dhashay iyo isku qabsadeen iyo midaan dhalin oo garsoorihii loo keenay markii la yidhi waa laidin kala goynayaa hooyadii ilmaha dhashay way ka naxaysaa inuu dhinto in muxuu ahaa uu go'o ma rabto way ilmaysay waxay tidhi iyada has ka qaadatee yaan la kala goynin waxaan u turayaa nolosha ubadka aan dhalay bay tiri jawaari wuxuu yidhi tii anoo ka tusaale qaadanaya sharci darra laygu qabsaday jujuub baa socdo handadaad baa socoto hase yeeshee waxaan u turayaa intii meel xun muxuu ahaa qarannimada Soomaaliya aan ku soo dadaalnay tagi lahayd waan tanaasulayaa buu saas buu ku baxay madaxweynihii isla laftigiisii oo ajandahaasi ku lug lahaa in hadda muxuu ahaa uu ku kaco arrimo kale markii asaga la soo eedeeyey uu asagana raadiyo inuu muxuu ahaa xoog uu ku joogo oo ilmihii la kala gooyo uu ku dadaalo muxuu ahaa runtii ma aha wixii loo doortay ilmahaas in la kala gooyo nama qabato ilmahaas in la kala gooyo ma aqbalayno intaas in muxuu ahaa adiga aad dadka maagto sharci darro samayso muxuu ahaa lagu tanaasulo haddana sharci darro kala samayso lagu tanaasulo oo muxuu ahaa ciidamadii qaranka aad u isticmaasho qaab muxuu ahaa cadowga aan loo isticmaalin ee loo isticmaalo ehelkoodii iyo madaxdii qaranka loo isticmaalo in lagu handado lagu laayo
arrimahaasi la muxuu ahaa arrin soconaya ma aha. dastuurka muxuu ka qabaa waa marka la fiiriyo dastuurka muxuu ka qabaa madaxweyne mooshin laga keenay ma shaqayn karaa madaxweynaha markii mooshin laga keeno oo mooshinka la faylgareeyo oo laga keenay waa eedaysane wuxuuna xaq u leeyahay inuu isdifaaco waxaa la rabaa isaga oo qof caadi ah oo iska difaacaya wixii xafiiska intuu xagga iska dhigo inuu wajahaa la rabaa oo qanciyo baarlamaanka qanciyo oo shacabka Soomaaliyeed qanciyo oo yimaado oo yiraahdo waxyaabaha sababtaasay u dhaceen raalli ha laga ahaado wixii aan khalday hal ay cafiyo waxaas inuu yiraahdo cod hal ay qaado uu yiraahdo kalsooni uu weydiisto ayaa laga rabaa haddii uusan yeeli karinna uu iska casilo xilka tanaasulo ma wadi kara qarannimadan madaxweynaha waa inuu meel iska dhigaa waxaas ma hadday ka taalo waxa weeye shaqooyinka uu qaban lahaa oo lagu aaminay baa lagu eedeeyey aaminaadii meesha waa dhimatay kalsooni ma jirto kalsoonidii baa muxuu ahaa muxuu ahaa boqolkiiba 50 hoos u dhacday 50ka kalena codayn bay ku imaanaysaa ama ku soo kasban karaa marka inta ka horeysa wax shaqooyina waaweyn oo qarankan uu qaban karo ma jirto marka mooshinka oo jira marka yaa hawsha ku sima ku sii naqanay maalintii shirka baarlamaanka la furo oo mooshinka miiska la soo dhigo oo dooda bilaabanayso uu soo dhigayaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu noqonayaa si hayaha muxuu ahaa inta madaxweynaha arrintiisa laga furfuray